dad badan waxay u maleeyaan inay guushu tahay meel aad mar qura tagto sida markaa ku istaagay dekada laakiin maya no haddaad doonaysid guushu waxay u baahan tahay dadaal. Salaamu calaykum. maanta waxaan ka hadli doonaa wax kasta oo qofka sareediisa ku jira oo ah guushu maaha wax si fudud ku imaanaya balse waa mid ku timaada dadaal iyo adkaysi iyo aaminsananta naftaada asaa ugu horreyntii waxaan idin leenahay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo dir oo taabo subscribe waad mahadsan tahay haddii hore noola joogtana aad u mahadsan tahay haddii aad rabto inaad guulaysato waa inaad lahaataa yool ama hadaf kuu cad oo aad maalin kasta niyadaada ku hayso ma aha inaad kaliya afkaga uga dhawaaqdo sanadkaani waxaan rajaynayaa inaan noqdo si hebel inaan sameeyo si hebel ma aha kaas hadaf laakiin hadafku waa mid aad ku seexato subaxdiina ku soo toosto wax kasta way kuu fududaan doonaa haddii ay kuu kala saaran yihiin ama ay kuu qorshaysan yihiin howlahaaga iyo nolol maalmeedkaaga iyo sanadada dambe waxaad rajaynayso laakiin haddii aad tahay bilaa camal social media kaliya daawado ogow ma guulaysan doontid haddii aad tahay ama haddii aad tahay qof kale haddii aanad hadaf lahayn haddaanad gool lahayn waxaad la mid noqonaysaa doon raran oo meel ay ku socotaanay jirin waa inaad lahaataa samir iyo dulqaad sabr dulqaad wax lagu noqdo hadegdeg boodi qunyar soco aayad waa gaari hamigaaga iyo himilada waa gaari laakiin maxay la kaalay asabr guushu waa maratoon maaha tartan gaaban waxaa jiri doona caqabado maalmo adag iyo waqtiyo aad dareento inaad go'doon tahay tusaale markii Thomas Edison uu sameeyay leedka korontada wuxuu isku dayay in ka badan 1000 jeer oo uu ku fashilmay markii la weydiiyay sababta uusan u joojin waxa uu yiri ma fashilmin 1000 jeer waxaan helay 1000 siyaasadood oo aan shaqeynin laakiin ugu dambeyntii waa taa dunida wada noqotay wada leer maantana isaga ayaa looga mahad celiyaa la jooga dadka saxda ah kama wado dadooga fiican laakiin waxaan ka wadaa la jooga asxaabtaada wanaagsan haddii aad yeelato asxaabkan waad ogtahay quraanka iyo diinta waxay inooga digtay asxaabta xun iyo dadka aan doonin horumarka iyo dadka wahsiga badan inaad ka harto saaxiib fiican yeelo saaxiibada xun iska ilaali saaxiib waa maxay waxa la yiri saaxiibku waa markaad ilaahay xasuusatid ka ku heelaya ku garab istaaga markaad ilowdana ka ku xasuusiya haddii aad isku wareejiso dad rajo leh adiguna waxaad noqonaysaa sida ay yihiin tusaale haddii aad rabto inaad caafimaad hesho la joog dadka jimicsiga jecel haddii aad rabto inaad horumar dhaqaale samayso la joog dadka fikirka ganacsiga leh ama ah ganacsatada maamaha Soomaaliyeed ayaa ahayd saaxiibka kumana madoobeeyo kumana cadeeyo laakiin waxa uu ka dhigaa sida uu isagu yahay waxa laga wadaa saaxiibka haddii uu xun yahay adiguna haddii aad hadda fiican tahay ciribtaada waxay noqon doontaa sida uu isagu yahay oo waad xumaan doontaa guushu waa safar waa socdaal maalin kasta aad ku horumarinayso naftaada waxaa jira laba nooc oo guul ah mid muuqata sida lacagta magaca iyo mid qarsoon sida fahamka naftaada farxadda aad hesho marka aad yool gaarto iyo dareenka inaad horay u socotay haddii aad rabto inaad wax barato guushu waa inaad maanta barato hal eray biri labo eray toddobaadkana aad ragto inaad ka horumartay shalay guushu maaha maalinta aad heshay lacag badan ama magac waa maalinta aad ka gudubtay caqabadihii ku hor istaagsanay shalay haddii aad ila soo gaarsay dhammaan gabagabada muuqaalkeena aad iyo aad u mahadsantahay daawade waxaan ku leeyahay kaliya si wadaag asxaabtaada allah ku sharfo waxa laga yaabaa inuu anfaco ayaga aad u mahadsan waxa inoo madala barnaamijka xiga oo wada kulmi doono aad iyo aad u mahadsantahay daawade